marketingka anigu waxaan yiraahdaa Ingiriisku wuxuu yiraahdaa if it's good to be true then it's not true adigoo gurigaaga jiifa haddii qof uu email kuu soo diro oo ku yiraahdo waxaad helaysaa $1,000 haddii 10 aad gelisid isaga muxuu 10 ku gelin waay ku heli waay marka Soomaali badan baa lagu dhacay maalin walba lagu dhacaa anigu markaan ka hadlo waxyaabaha ugu yaabka badan waxay tahay dadku waxay yiraahdaan xaasid baa tahay dhalinyarada inay ka shaqeysan dooni maayaan of course verification waa lagu sameyn karaa dadana anagoo joogna qandala ya waxay la soo xiriiray magazine ambassadorkan u sheegay magazine wuxuu yiri Abdinaasir nin balaayo caana tahay waxaan doonaynaa in interview ka qaadno isla markaana xogaan aan ku soo tuurno xoogaa markuu leeyahay ilaa way furmayaan Soomaa ambassadorkan la hadlo wuxuu yiri iska ilaaliyo yiri waxaan aniga aadan ugu xil dheerahay marka waan yara aamina markii hore magazine qurux badan oo dad model anoo kale iyaga qurux badan baa ku jiray marka waxaan isiri bal adna ka qayb gal sawirro soo dirbaalay sawirradii qurux badan kan hadda kii aad soo saarteen sawiranaad u jecla ay soo saarteen kiiban inaan u dirar rabay markii dambe one mistake bay sameeyeen email waxay isticmaaleen gmail bay isticmaaleen company gmail bay isticmaaleen marka xataa haddii aad aragtid company kula soo xiriiraya oo kuu sheegaya waa la soo qaadaa copy laga soo sameeyaa Google ka la geliyaa marka la geliyo waxa la raacsiyaa ereyga fraud fraud iyo la raaciyaa tusaale ahaan company la yiraahdo hebel fraud la raaciyo qof bay hortaa dhaceen marka uu soo baxaya ereygaas dil raacdi waa 100% garanti maalin walba laakiin sida ay tahay dadku waa lagu dhacaa